السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa halkaan ka dhaca dagaal aad iyo aad u xoog badan oo la isu adeegsaday baangado, budad, dhagxaan iyo dab. Waxaa u dhexeeyay tagaasiley South Africana iyo Soomaali Uber driver loo yaqaano ama kala dhaweeyaha si loo yaqaano kale. marka yar Soomaaliya wuxuu si kama ugu dhacay dhinacaasi la caasili uu xanaaqay ninkii Soomaali uu baawarka ka jijabiyay ka bacdi Soomaalida kale u soo gurmatay ninkii waa la garaacay South Africanka ay ka bacdi gurmad degdeg ah oo doontay raggii wadanigiisa ahaa tagaasileyda kale u timiday saani baawarkan ay ku cararay baawarkan gubeen markii la bursaday ka bacdi Soomaalida waa xanaaqday ilaa 12 caasi ay halkaas ku gubeen balaayo dhanaa isku dhacday hadda dawladda timiday laakiin tagaasiley oo la galo wadankan aad iyo aad ayuu u dhib badan yahay marka xaalad koostan araga haytaan baaburti taksiraanki walguwahay wala xabada weera dheega haytaan marka xaalad koostan eeda tolo lankaabaha dhameeyeen ay galaftirkooda dawladdu ma kala dhexgeli karto waxyaabo aad u dhib badan waaye hadda Soomaali waa faragashatay marka arrintan haddaan si degdeg ah loo xallin ama kale meeshaan hantiya ku baas beeshay walaa dhib badan ka soo socdo laakiin Ilaahna muuti insha Allah